magaalada Xiingalool ee gobolka Sanaag waxaa ku taala makhaayad la yiraahdo Fadhisamo oo ah meherad shaaha lagu gado macaamiil badan haysata macaamiisha makhayadan waxay sameysteen xeer ku cusub habdhaqanka makhaayadaha shaaha ee Soomaaliya ka jira gaar ahaan gobolka Sanaag xeerkan ayaa dhigaya in qofkii raba inuu dadka u sheekeeyo oo isaga la dhageysto uu marka hore bixiyo lacagta shaaha dadka makhaayada fariista ay cabaan wariye Maxamed Saalax ayaa makhaayadaasi tagay oo shaaha ka soo cabay sheekadana ka sameeyay waa makhaayad shaah oo ku taal bartamaha magaalada Xiingalool ee gobolka Sanaag balse si ka duwan makhaayadaha kale halka waxaa ka jira xeer cusub oo ay macaamiisha rasmiga ah ee shaaha ka cabaa sameysteen wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu meherada ka sheekeeyo uu shaaha u shubo dadka markaas fadhiyo oo dhan si loo dhageysto sheekadiisa waa dhaqan Soomaali in meheradaha iyo meelaha kale ay dadku isugu yimaadaanba lagu sheekaysto balse macaamiisha Fadhisamo Xiingalool ee dhaqankaas sharciga duldhigay ayaa ku doodayay inay doonayaan in la isdhageysto oo aan la iska dhinac sheekayn si aan buuq u dhalan marba qofkii haya sheeko mudan in la dhageysto ama dadka la wadaagayo xog uu hayo ayaa la dhageystaa lagamana dhex galo isaguna wuxuu bixiyaa lacagta shaaha markaas la cabay Saciid Umar Ali waa mid kamid ah dadka makhaayaddan sida joogtada ugu xidhan wuxuuna ku jiraa dadkii xeerka soo rogay raadiyaha ergo ayuu u sheegay markii xeerkan la isla qaatay in makhaayaddu noqotay mid nidaam leh markii hadalkii lagu heshiin waayay nin walba ama cid buu taageeraa ama message buu xambaarsan yahay hadalkeena marka uu noqdo maxay ahayd nin walba Soomaalidu dabacad bay leedahay waad aragteen oo waxa weeyaan hadalka ma kala dhageysato markaas ayaa waxa lagu heshiiyay shuruuc baa la sameystay waxa la yiri meesha wixii ka dhaca oo shaah ah oo sharaab ah ninkii maalinta sheekaynaya baa qaba oo sheeko sida ama doonaya inuu message-kiisa gudbiyo cid kale oo soo maxay ahayd hadalka ka soo dhexgalaysaana ma jirto sidaasna ha lagu ixtiraamo ha lagu dhageysto qofka dadka u sheekaynaya oo shaaha shuba wuxuu shaaha ka bixiyaa dadka markaas fadhiya makhaayada kuwa wadada maraya oo loo yeero iyo qofkii 2 ama 3 koob cabaya mararka qaar dad ka badan 200 oo qof ayuu qofkaasi shaaha ka bixiyaa qiimaha 3 koob ee shaaha ah makhaayaddan waa $1 barkii haddaba sidee ayay arrintan u arkaan maamulka makhaayadu Faaduma Axmed Xasan waa maamulaha makhaayadda shaaha ee Fadhisamo taasi wanaagsan baan u arkaa because of waxa laga yaabaa in meheradii markaa uu nindho intuu soo fadhiisto uu intii fadhiday in kale ba ay soo fadhiistaan oo mujtamac badan uu yimaado shaahana uu dhaho dusha ka qeynayso ana bixinay uu dhaho saasna ay ku dhamaadaan ama kili ama 2 kili taasi waa mid wanaagsan kasoo suuqa ay meheradu ka heshay xeerka shaaha wuxuu kaloo xeerkan fududeeyay in dadku meherada ay si wanaagsan ugu kala warqaataan sida uu markala qabo Saciid Umar Ali waxa ugu xisaab badan horta barwaaqooyinka Ilaahayna siiyay ka koow ah oo la iskaga wareysto waxa ka koow ah dawladda Soomaaliya iyo meelaha ay marayso baa laba ka ah iyo waxyaabaha la hiigsanayo waxa la yiraahdo dhul xaalufka iyo waxyaabaha la midka ah sida wax la isaga weydiin lahaa waxa kale oo ka jirta subaxaas waxa qofka shaaha shubaya oo meesha fadhiya isagoo ugu weyn oo xaqaya ama uu marka dareensan yahay inuu halka kaga hadlo jawaabna waliba uu ka waaba loo siman yahayba ninkii saaqso waxda isagu soo qaawiyo yiraahdo adeer aniga $5 $10 u soo sariftay meesha ninkaas isagu waxa weeye laga celimay lama kala le meesha waxa lagu kala helayaa waa ninkii isagu marka u diyaara inuu hawsha u yiraahdo marka ugu horeyso codsada sheekooyinka qaar ayaa qaata saacado haddii qofka sheekaynaya daalona waxana siiya hadba qofka uu wakiisho maadaama uu isagu shaaha bixiyay dhageystayaashuna waxay ku ceshtaan shaaha mar kale inta badan makhaayaddan waxa la fadhiistaa marka duhurka la soo tukado oo reer guuraaga oo macaamiisha meheraddan u badani ay hawlahooda soo dhameystaan sida waraabinta xoolaha oo galinka hore lagu hawlan yahay ku dhaqanka xeerkan oo ay macaamiisha meheradda shaaha soo rogeen waxa ilaaliya isla macaamiisha iyadoo qofka jabiyana laga mamnuuco inuu sheekeeyo iyo inuu cabo shaaha qof sheekaynaya bixiyay hadda ka hor hal nin baan intaan garanayo laga joojiyay ninkaasina wuxuu sameeyay wuxuu yiri anaa hawshaas waxa la yiri hawsh sharcigaas meesha ka socday dadka u daa wuxuu yiri maya maanta aniga meesha raba shaahi markuu 10 marayay oo 10 koob u marayay oo saa u eegay oo intuu 10kii bixiyay yiri aniga way iga xidhay kadibna waxa loo sheegay inaan meesha ku soo noqon meel nagu dhow fadhiistaa markii meesha waxa ka dhacaya ma xadidna sheekeeyaha iyo loo sheekeeyo balse jeebka sheekeeyaha iyo xiisada ay sheekadiisu leedahay ayay ku xidhan tahay camirnaanta iyo xog isdhaafsiga makhaayadu da'yarta ayaa iyagu xiiseeyay sheekooyinka shaaha la isku dhaafsado
waxayna caado dhaqameedkan u arkaan mid ay ku heli karaan xogaha waqtiyo aysan soo gaadhin sida uu qabo Cabdixakiin Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku xidhan makhaayaddan sheeha iyo sheekada. laba mid baan ka helaa oo waxaan ka helaa horta watii dhaqanka Soomaalida oo hore midna waxa weeye taariikhii dadku soo maray hadii ahaan halganid systemkii dawladeed ee wadanka jiray waxa soo dhan waan ka faa'iidnaa dhalinyarada horta anagu sheeko badan baan u hayno inta badan odayadaasan faa'iido badan ku qabnaa meherada qosol iyo waxa weeye waxyaalo badan waan ka helaa faa'iido runtii waaba u shaah bilaash waan ka helayo waa isaga soo tagnaa moogta. Cabista shaahu waa mid sarreysa guud ahaan gobolka Sanaag maadaama uu jawiga gobolka inta badan uu yahay mid qabow waxaana shaah cabistu sii korodhaa xilliyadan diraacda ah ee qabowga badan. Maxamed Saalax Radio Ergo magaalada Xingalool gobolka Sanaag. waa hagaag aad buu mahadsan yahay wariye Maxamed Saalax oo sheekadaasi xiisaha leh inala wadaagay.